qaybta hore barnaamijka waxaynu kaga hadalnay nacam deegaanka iyo bay'adda waa arabsiye khatar tahay ku hayaan erosion amba dhulkan googo'aya amba camuudda soo dumasa taasina iyadii waxaan la yidhaahdo xaalufka desertification waayo xaalufkoo kale laagahan soo rogmanaya kolkay ay yaraato dhirtu waxay la tegayaan camuudda alluuviyada labeenta ahayd ee dalaga beeraha wax lagu beerinayay waxaasoo dhan badda cas ayay ku shubayaan the Red Sea ama waxaan loo yidhi amba Gulf of Berbera amba Gulf of Aden waxaad doonaysaan ugu yeedha ayay camuuddaasoo dhan tegaysaa kolka arabsi 3 doox baa mara dooxan agamsaha iyo dooxan magaalada arabsiyo dhex mara iyo dooxan agamsaha saddexduba waxay ka yimaadaan midi halkaa iyo duburaha ayuu ka soo dhacayaa kan hulluuqeed isagu laaleyskii ayaa ku soo dhacaya buraha laaleys ayaa ku dhacaya kan kale agamsuhuna wuxuu de halkan iyo isaguna waa duburihii oo dhinaca galbeeda kolka kan arabsiyood wuxuu halkaasuu ka gelayayo de waa ka agabar sii maraya kan kalena waa la mid wuxuuba hadhow toole halkaasay ku shumayaan badda cas badda ayay tegayaan waa sidaynu u sheegnaa dee awalkii hore durdur ayuu ahaan jiray durdurkaasi wuxuu ay cimiladani isbedeshay waa 84 run ahaantii waa sidaa carabsiyo iyo taariikhdeeda magaalo ahaan siday ku bilaabmatay xillimay magaalo noqotay iyaduna de waxa weeyaan waa in qof garan waayey deegaanku ku nool yahay taariikhdiisa de waa qof indhala arabsiyo de deegaan awalkii hore waxay ahayd xoolo dhaqato oo xadaaradan beerahaba waxa inaga inoo keenay sheekh madar iyo culummadii kolkaa la socotay kolkaa 1867 baa leeyahay 1800 iyo ilaa 68 ayuu halkan baa leeyahay arabsiyo jameeca ayuu ka furay oo ay dhulka colaad baa jirtay hargeysana jameeca weyn ayuu ka sameeyey halkan kale ilmadadana wuxuu ka sameeyey jameeco oo culumo la socotay ayaa isku ballaarisay kolkaa colaadii bay xaasiliyeen dadkii kolkaa xoolo dhaqatada ahaayee ayay waxay xadaaradii ay kolkaa ay kala yimaadeen herar ayaa iminka qalabkan beernaha aynu ku qodanna oo dhan terminologyga amba ereyada aynu isticmaalno hornuga booyiga marashiga kootarka jiqirida xarqoodka indhalaha wuxuuba waxay naga yimaadeen dhinacan etoobiyada sare ayaa la yidhaahdaa ayay nagaga yimaadeen kolkaa culummadiibaa kolkaa inoo keentay waktigaasi waa 1870 ayaa kolkaa beeraha aynu u rogmanaynaa xadaaradda inay la dego oo beeraley kolkaa beerihii ay samaysmaan waa 1870 waa ka hor uun cismaaniyiintu waxay imanayaan 1874
kolka wixii inta beeraha aynu wadnay imika run ahaantii waxay noqonayaan markaa waa 160 sannadood run ahaantii magaalooyin waxa jiri jiray waa berbera bulxaar iyo saylac berbera iyo bulxaar iyagu waxaa la oran jiray waa seasonal oo xilliga wax la dhoofinayo amba ay wax soo degayaan badfuranka unbay ahaan jireen meelo waa april october baan jeedaa bisha 10aad ilaa april kolka la gaadhayo intaasi waa magaalo inta kale april markay gaadho 15-keega guryaha oo aqal Soomaali ahaa magaalada cid lay noqon jirtay oo waa badxilan kolkaas saylac unbaa ahayd magaalo settlement oo la degan yahay oo daara ay ka dhisan yihiin iyo herar kolkaa xilligii ay noo keeneen ciidamada carabsiya laga furay Sheekh Ismaan Buux ayaa kolkaa hawshii halkii ka qaaday beeraley baynu isku rognay oo xoolo dhaqatadii kolla waqooyiga aynu deganay kolla aynu ooga ula baxanay xilli roobaadka ayaa kolkaa carabsiyo waxay noqotay caravan road wadooyin ay ku kulmaan kolkaa bulxaar safarkii ka imanayay iyo kii ku socday ayaa wax kolkaa ay culimadu degtay ayaa ku kulmay kolkaa waxa la isdhaafsan jiray baayic mushirka kolkaa dukaanadu xayramada iyo ayay ku bilaabmeen kolkaa 1870 aqal Soomaali oo dukaana laga samaysto iyo meherada iyo maqaaxi kolka la soo gaarayo gurigii ugu horeeyay waxaa dhisay baa la yiri Cabdilaahi Xirsi waa 1888 buu dhisay baa la yiri bulxaar baa la isku dilay bulxaar buu ka soo guuray kolkaa halkan eelbiyoolaha agtiisa guri halkaa ku ooli jiray warshada leyrka reesamr iyo dhinaca ka xigay beertan imika malaha beer bay noqotay horiya iyo Allah naxariistee Cabdigaas iyo kolka gurigii ugu horeeyay halkaas uu ka sameeyay guri weyn oo store iyo maqaaxi iyo dukaan inta kale xayramaday ahaayeen kolkaas waxa bilaabmaya halka guri dhiskii ayaa ka bilaabmaya kolka carabsiyo waxay ka mid tahay settlementkii ugu horeeyay ka mid tahay runtii Hargeysaba iyada ka horeysay sida bugaagta taariikhda lagu hayo taasi waa taa dabadeeto waxa culumma un baynu hogaaminaysay Allah naxariistee waxaynu soo gaadhnay Sheekh Daawud oo imika jaamacadda Rasaane Imraan vision-keega leh maanta sumcadda iyo maamuusta leh oo iyadana in la ilaashado legacy-gaasi in la qoro oo lagu faano laguna daydo oo role model ay noo ahaato kolkaa waxbarashada carabsiyo waxay ka bilaabantay baa la yiri waxbarashada diintu waynu sheegno waa 1800 oo culimadii baa bilowday waa 1800 oo tan aynu sheegnay waxbarashadan faranjiga kolkaa dugsigii ugu horeeyay waxa laga qoray halkii maqaaxidii in meegaag ay ahaan jirtay oo laba qolo in meegaag iyo halka cali yara u lahaa ayuu cali hanfi cali yara donation ku bixiyay markii waayo ardaydu intay carabsiyo ka tagaan ay gebilay tagi jireen amba huluuq haduu ka imanayo gebilay wax weeyaan gebilay waxa la furay waa 1952 kolkaa dib bay ku noqoto dooxyadan oo mararka qaadkood roobabku darogmanayaan kolkaa odayaashu waxay u cawdeen dhiisigii kolkaa Hargeysa deganaa waa cali hanfi Ahmed Gure
sida Jenny Dihim ay sheegayso sheekh Abu Faqara waa Sheekh Umar Liibaan buugan waxa la yiraahdaa waa The Last Camel walo xooga qalad yar ka gashay Hargeysa tageen Hargeysa kulkii ay tageen ayay dhisigii yiraahdeen waxaan u baahanahay in dugsi caruurta iyada carabsiya looga dhigo ay ku adagtay safarka dheer ee ay tagayeen gabilay kulka wuxuu yiri dib sanadkan waa qorshihii wuu xidhmay laakiin sanadka dambe aan idinku dari doonaaye idinku sanadkan la yimaada gurigii lagu dhigayay kolka cali yare baa yiri ana deeq ahaan ku bixiyay 2 qol kolka halkan ina meegaag maqaaxida ina meegaag ee suuqa hoose originka arabsiyo dhalinyarta aan garanayna bal waa tagi kartaano halkee bay ahaan jirtay dhaha waa downtown arabsiyo halku ka bilaabmay maqaaxidii cabdi meegaag oo cali hanfi uu lahaan jiray iyo guri kale ku xiga ayaa halka laga bilaabay waxbarashadii ugu horeysay kolka macallimiintan idinku deeqayaa buu yiri dhisigii kolka Faysal Umar Mushtaaq iyo Ducaale iyo aw jaamac Carabiga dhigi jiray ayaa kolka halka ku bilaabay kolka arday buu ku xiray waa in ardayda la helaa condition ardayda garasa hadii ardayda leedika waayo waxba waan xirana buu yiri dhisigu kolka cali hanfi iyo Axmed Gure halkii galaasyada hortooda ayay kolka keeneen 2 miiso waaweyn oo dhaadheer waxay ka soo buuxiyeen dukaanada iyo lacag iska soo ururiyeen dhar kabo nacnac buskud kolka waqtigan nasiib bay yiraahdeen ayaa la idin sameeynayaa caruurtii yareed baa ku soo ururtay kolku bogosir buu gacanta gelinay wixii uga soo baxaa kolku la siiyo ayaa la oranayaa fadhiiso gal qolka oo galaasyadii wax lagu dhigay iskoolka sidaas lagu buuxiyay maalin subaxii uu yimid kormeerkii kolka dhiisigu soo diray galaasyadii buuxa 2 galaas sidaas kolka ay ku bilaabantay waxbarashadii ugu horeysay ee arabsiyo oo 2 qol waxa kamid ahaa dadkii barha oo gaab baa kamid ahaa Cabdi Cumar baa kamid ahaa Allahu naxariistee dhawaan buu dhintay baa lagu yiri waxa kamid Cabdi Cumar Ducaale waxa kamid ahaa Maxamuud Ismaaciil nin loo oran jiray oo Mareykanka ku geeriyooday waxa kamid ahaa Ahmed Habeen Ahmed Abdullaahi oo isaguna uu geeriyooday Ilaahay oo naxariisto Shimcaan oo Professor Shimcaan oo maanta haya oo macallin weyn Ilaahay cimriga iyo caafimaadka ha u siyaadiyay ardaydii ugu horeeyay ardaydaasi iyo kuwa kale oo aanan xasuusanayn bay ahayd Allah ha naxariistay kolka Ahmed Cali Alhiye ayaa yiri anigu ladkii ku xigay ee dambe ayaa noo hayn oo qoladani kolka 69kii ayay galeen kolka 60kii ayaa la dhisay halkan dugsigan hoose waxa la dhisay qol iyo office-kii iyo store buugaagta iyo lagu kaydiyo kolka Allah naxariistay Ahmed Cali Hanfi wuxuu yiri annaga waxaan galaaska iyagii geedkan weyn ee quraca ee dugsiga hoose ayaa kolka aan ku dhigan jirnay dadkii ka horeeyay ayaa halka galay tacliintu kolka sidaas ku bilaabmatay dabadeed waxa kolkay ka baxaan standard 4 kii elementary-ga
ayay kolkaa cadaadley iyo dee waxaa boodhanadaasaa loo diri jiray oo amba shiikh iyo ayay geli jireen. kolkaa dugsigan dhexe waxaa la dhisay 1965 USAID waxaan USAID-ka la yidhaahdo ayaa dhisay. USAID-ka kolkaa dugsigan dhexe Axmed Gurey baa loo bixiyey. waa 1965 macallimiintii kolkaa ugu horreysay wax ka dhigay waxaa ka mid ahaa lod baa ka horreeyey. kuwii labaad ee ku xigay waa Jini Dihim, Cabdiraxmaan Sabti, Cabdilqaadir Xasan iyo Axmed Cali Axmed Colhaye baan jeedaa Cali Axmed Colhaye oo kolkaa yidhi kolkan secondarygii GC ayaa macallinimo isna lagu keenay oo Jini Dihim wada macallimiin bay ahaayeen Allah u naxariistee. Bristol kooguna wuxuu ahaa Cabdilaahi Khaliif, waa Cabdilaahi Qaawi amba Cabdilaahi Khaliif baa la odhan jiray. ku cadeeyaa la odhan jiray. waa macallimiintii ugu waaweyneyd ee ilaa dayaxa ka dhigi jiray kontonadii dhowr iyo kontonkii. reer Jabuuti ayuu dhinacaan ahaa. wuxuu ku hadli jiray dhowr luuqadood. Azeri buu ahaa, wax ku soo bartay jaamicatul Azhar. Faransiiska ayuu aad u yaqaanay, Englishka iyo Carabiga. kolkaa dugsiga macallimiinta dugsiyada dhigi jirtay waxay ahaayeen dad aqoon leh oo bachelor sita. waxaa kolkaa magaalada laga bilaabay Atlastii in qof kasta oo magaalada meherad ku leh maqaaxi ha ahaato, kirishbay ha ahaado, dirawal ha ahaado, waxaa qasab lasoo saaray wax la yidhaahdo adult education qasaba Atlas. kolkaa buuggan bay Jini Dihim kaga waramaysaa. The Last Camel la yidhaahdo awrba awrka uu ka horeeyo ayuu socodkiisa leeyahay. kolkaa waxaa finance garaynayay bay tiri Board of Education-ka Cali Hanfi Cali Yare, Axmed Gure, Sheekh Cumar Liibaan, raggii waaweynaaye caynkaasaa gacanta ku hayay. kolkaa Jini Dihim waxay tiri dugsigan hoosaanu ka bilownay adalka dadka waaweyn. kolkaa dadkii adult education-ka ka faa'iiday waxaa ka mid ahaa Xasan Xaaji Allah u naxariistee, maayarkii ugu muddada dheeraa Gabiley. Carabsiya wuxuu ka noqday kaaliyihii ayuu ka noqday inuu kaaliyihii ahaa baan malaynayaa 77 ilaa 78 79 baa kolkaa laga bedelo Gabiley oo heer barasaab gaadhay. dayax baa ka mid ahaa Allah naxariistee, Atlastii ardayda Xaaji Amarna ka mid ahaa. kolkaa waxay tiri meherad kastaba waxaa lagu qasbay dee waqtiga electric iyo light buu jirin. bahal la yidhaahdo light amba trig baa la odhan jiray maasho ayay kolkaa meherad kastaba soo qaadi jirto. isbiirto bahal la yidhaahdaa ayaa dubaalad inta lagu gaaska laga buuxiyo ayaa kolkaa ilaa 5 bay geyn jireen. meheradii amba qofkii iman waaya waxbarashadaasi adult education-kana waqtigaasi waa la ganaaxi jiray baa la yidhi ganaax. kolkaa magaalo waxay ahayd volunteer dadkii ka soo baxay tacliinta adult education-ka waxay ahaayeen dad ka faa'iiday. barnaamijka intaasaan ku xiri doonaa. kilibka ayaanan jeclayn inaan dheereeyo oo idinku dheeraanayo. insha allah waynu iskugu iman doonaa barnaamijyo kale oo lamid ah insha allah. halkaasaan tan ku goyeynayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.